xafladda xiriirka kula kala wareegayay wasiirkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo wasiirka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi Sidiiq Xirsi Warfa ayaa ka dhacday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana xafladdan xil wareejinta goobjoog ahaa isla markaana xiriirka u kala wareejiyay labada wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Khadar shaqaalaha wasaaradda iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Axmed Jaamac oo iminka ah wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay xafladda ayaa ka warbixiyay wixii uu qabsoomay intii uu wasaaradda joogay waxaan rabaa inaan ku kala saafo ama dhambalo bal qaybaha kala duwan ee shaqo ee wasaaraddan ay qabato waxaan rabaa inaan 4-3 kugu soo koobo mandateku aad bay u ballaaran tahay laakiin meelaha aan jeclaan lahaa inaad focus ka saarto ama bariyahan aanu gacanta ku haynay ugu horreyn sida la wada ogsoon yahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay mas'uul ka tahay dib u yagleelka hay'adaha dawladda iyo waxa ka qabashada shaqaalaha rayidka maamulka iyo maareyntooda halka haddii aan kaaga bilaabo arrimaha public administration la yiraahdo civil service reform wax fara badan baanu ka qabanay waxana waa dhiman yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saadiq Xirsi Warfa ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan hadafka horumarineed ay wasaaraddu tiigsanayso mas'uuliyadda la saaray culeyskeeda waa dareemayaa haddii ilaahay anoo tala saartay iyo anoo haysta saaxiibo iyo idinka shaqaalaha ay dhammaanteen hadafka iyo ulajeedada wasaaraddan waa gaarin haddii ilaahay marka waxaan rajeyn doonaa wada shaqeyn wanaagsan waxaan rabaa shaqaalaha inaan si gooni ula hadlo shaqaalaha wasaaraddan shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada qof kasta oo wasaaraddan ka shaqeeya anigu maanta sida wasiirkii hore idin sheegay shakhsiga ku cusub ayaan ahay sidaas la hadligeed qof walba page cusub macnaha buugaas cusub wuxuu ku qoran yahay baa ii tahay aniga dhammaantiina waxaan rabaa saas oo kale aan kuda shaqeey qof walba wuxuu pagegaas ku qorto baan kula dhaqmaya haddii ilaahay waxaan idinka rajeyn doonaa marka inaad si niyad samidaas aad kula shaqayseen wasiirkii hore aana aad igula shaqeyn doontaan ugu dambeynna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Khadar oo xilka u kala wareejiyay labada wasiir ayaa ku amaanay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi shaqadii wanaagsaneed ee uu soo qabtay inta uu xilka hayay sidoo kalena waxa uu kula dardaarmay wasiirka cusub inuu si hufnaan ah u guto shaqada wasaaraddaasi wasiir ku soo dhawow wasaarad ballaaran baad ayaad xilkeedii maanta la wareegaysaa oo aan ku kalsoonahay hubana madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ku kalsoon yihiin inaad meel fiican gaarsiin doonto dardar gelin doonto aynu u soo wada jeedsan doono dib u dhiska qaranka iyo taabagelintiisa iyo in qarankani cagihiisa isku taago dal kamida dunida sidoo awalbana ahaan jiray magaciisa sumcaddii uu lahaabana leh waxa dhaxlaysa shaqaale laf dhabar ah oo ay aragnimo 40 ama 50 sano u dambeeyay u leh siyaasadda shaqaalaha arrimaha bulshada iyo shaqo qorista marka waa ku hambalyeynaya guul baan leeyahay waxa kale oo hambalyeynaya wasiir Saalax Axmed Jaamac xildhibaan ah